وهذا داوديال مركنا دالك تركيا waxaan idin wada qodob la yaab leh oo ka yaabiyay dadka ku nool dunida kaasoo aad looga hadalhayo aaladaha social media-ha waxa dalka Turkiga ku umushay haweeney jirta da'da 101 sano jir iyadoo dhashay ilmeegeedii 17aad Antonina Fardelli oo haweeney 101 sano jir u dhalatay dalka Talyaaniga ayaa la siiyay dhalashada ilmaha 9 bilood ku dhashay ee dalka Turkiga kadib markii ay isbitaal maxalli ah ay ku umushay cunugeeda xirfadlayaasha caafimaadka oo u dhashay dalka Turkiga ayaa sheegay in qaliinka haweeneydan lagu sameeyay kadib inuu ka dhashay muran xagga ugxansidaha ah maadaama ay daahan jirtay 101 sano jir sharciga dhinacyada caafimaadka ee deegaanka iyo qaaradda Yurub ayaa aaminsan in haweeneydan ilmiga ay dhashay aysan ku dhalin si sharci ah Antonina Fardelli oo la hadlaysay saxaafadda iyadoo dhabta u saaran yahay ilmigii ay umushay ayaa waxa ay tiri waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhaqaatiirta ku dadaashay qaliinkan waxa dunidu ku soo dhaweynaya cunugeygii 17aad waxay tiri tani waa dhacdo dhab ah oo marqaati u ah xagga awoodaha alle ee uu qalqo aadamihiisa Dr. Alexander Bebolochi oo ah aqoonyahan xagga caafimaadka ayaa aaminsan inay dhici karaan murano xagga ugxansidaha ah iyadoo loo sababaynayo xagga da'da laakiin waxa uu qabaa in ay tani tahay awood ka weyn cilmiga dunida haweeneydan lagu magacaabo Antonina Fardelli ayaa waxa ay sheegtay in uu ku dhacay kansar xagga ugxansidaha uga dhacay da'deeduna waxa ay ahayd waqtigaasi 48 sano jir wixii intaas ka dambeeyay ma aysan dhalin wax ilmo ah hase yeeshee Rabbi subhanahu wa ta'ala ayaa u qadaray in ay ku dhasho da'da 101 sano jir cunugeedii 17aad dhacdadan oo ah dhacdo aad la yaab uga ah dunida waliba aad looga hadalhayo aaladaha social media ayaa waxa noo soo turjumay oo warkayaga ugu talagalay wariyaha Aweys Maxamuud Jilcow oo aan kaga mahad celinayo